waxaan ka horeysiinayaa hadalkayga kelmad cudurdaan shirku wuxuu qorshaysnaa 11 saacad buu soo hordhacay saacadda soo hordhacay waan ka raaligelinaa dadkii u qorshaysnay ama soo sheegay geliyay in 11 barkoo shirku qabso waan ka raaligelinay anoo tixraacaya hadalkaas sahla dhalinyarta anigaa ka mida anigaa afkooda ku hadlaya anigaa si gaar ah matala anigoo shiikooda waxaan doonayaa hadalkaa oo soo koobaya farabadin maayo runtii markaad shiik eegto goob kasta aad eegto qashinku wuxuu yaalaa si maxaa kaa galay qashinku wuxuu noqday buuro waxaan noo qorshaysan insha allahu tacaala يوم الخميس القادمة إلى نقبلنا أولا نرافض والله أنك كبلابي كلية هيك كبلابي وحن دولنا إن شاء الله تعالى إن بشر الشيخ إن إذا لقبتان أنك وحنا قربنا كذي جاي إذا كانوا نبدي بهنا هاي نحن لقبتان كان دولنا حتى الساعة رشق إنسان بانوية كاننا حتى رشق إنسانا وحفي عن بانقفل إنسان haddii aan la shaqeyn weydaana way koobnaa saaqaantay annagu xaggayaga waan dhamaystirnay wixii loo baahnaa hadday tahay gaadiidkii waxaan diyaarinay gaadiidkaa dowladda hoose mooyaane gaadiidkaa shicibku inay maalintaa ka qayb qaataan oo aanu shaar ku shubno waxaan diyaarinay wax kasta oo agab ah oo maalintaas ololaha iyo wixii ka dambeeya aan kaga qayb qaadano waxaanu u baahannahay annagu xaggayga diyaar baanu nahay xaggii bulshada reer shiikhow annagu idinkaan idin baahan inaad nala qabataan inaad qashinkaa nala gurtaan inaad ololaha nala qayb qaadataan dhammaanteen waxaan doonayaa qof kasta oo reer shiikhay farinta waan farayaa waana ku celinayaa qof kasta oo reer shiikhay inuu soo qaata fargeeta soo qaata oo face mask soo qaata oo qashinkaas meel kasta yaalla insha Allah aynu qacmaha isku qabsan sidii aan u nadiifin lahayn waxaan qashinka kaga baxaya shuruudaha leedii aqriyay way fulayaan wallahi way fulayaan awood dawladeed baan ku fulayna shirkad baqata malaha ka xishoota waxay ka baqatay leedahay haddii guriga qashinka dabadda soo dhiga ee lagu soo cadeeyo maxkamadda ma tigsan sharciga ma tigsan odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta waxaanu ku codsanaynaa in aanay nagaga daba imanin oo arrinkaas arrinka odayan iyo sulux in lagu dhammeeyo inay naga joojiyaan inaanu sharciga la tigsanno waa ballan qaadaya insha allah qodobka i raacaa waxa weeyaan waa isku tashi baa lagu qabsadaa isku tashi baa lagu dhisaa isku tashi baa lagu tanaadaa aan isku tashanno xooggeena iyo caqligeena iyo cilmigeena iyo cududeena intaba aanu midayno markaanu midayno ayaa maxsuul fiican soo baxaya annagu waxaan nahay adeeg fuleeya wixii aad noo dhiibtaan baanu idiin fulinayna wixii aad bixisaan baan wax ku qabanay annagu hanti maalkaa kama kelin hantida reer shiikh ee ay cashuurta lagu magacaabo ee ay bixiyaan baan wax ku qabanay haddii taa la waayo annagu waxba qaban karno waxaanu bulshada ka codsanaa insha allah inay cashuurta bixiyaan marka qashinkaa la dhammaystiro codsi maaha ee wuxuu tegayaa amar iminka waan ka codsaan maalintaan qashinkaa dhammaystirno amar buu tegayaa waanu ku amraynaa waanu albaabadaan kala baxaynaa sharcigaanu la tiigsanaynaa qof dambe ka bari mana cashuurtanu bixiyo annagana waxaa naga taqaana koow la xisaabta anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka waxaan idiin ballan qaadaya inaan sameeyo la xisaabtan daahfurnaan haddii loo baahdo isbuuc kasta in la xisaabtamo diyaar baan
haddii loo baahdo maalin kasta in la xisaabtamo diyaar baan waay haddii loo baahdo bil kasta in la xisaabtamo diyaar baan waay la xisaabtan daahfurnaana oo shilinka waan balan qaadaya la xisaabtan daahfurnaana anoo ku hadlaya afka dowladda hoose anaa taa balan qaaday waxaan kale oo aan samayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo sanduuqa shakaaw sanduuqa tala bixinta waxaan ku samayn doonaa afka dowladda hoose afafka dowladda hoose laga soo galo sanduuqaas qof kasta oo reer shiikha oo tala noo haya halkaas ku soo ridaya annagaa kala baxayna taladiina dib baan u eegaynaa taladiina wixii mandiqi ah ee diinta islaamka iyo sunnaha iyo qawaaniinta dowladda iyo qawaaniinta dowladda hoose aan ka hor imanayn annagaa u baahan waxaan hadalkayga ku soo koobayaa aynu qacmaha isqabsanno ololaha aan ka wada shaqayno degmadeenna aanu u guntanno waxaad arkaysaan meel kasta waxa yaalla dhagax 30 sano yaal iminka dowladda hoose markaa ka baxdaan geedka hoostiisa yoolkaa dhagaxaya intuu yaal bilaa calayg intuu yaal 30 sano kama yar ma dhici doonto